xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle waftigii nooga yimiday fariin yar oo ka baxday oo si qaldan u baxday inaan meediyaha la wadaago in arrintaas ay qalad ahayd muhiimna ayna ahayn inay ka dhacdo gobolka Hiiraan anigoo ku hadlaya afka shacabka iyo afka wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaanka warkaas ka dhacay inuu wartaas ku qaldamay abalajasna aan ka bixinayno madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay raalli ka ahaanay arrintaas annagoo oo wakiila shacabka reer Hiiraan sababta ay tahay waxa meeshan ka dhacay waxaan ka dhicin caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waa garan kartaan oo qof hadduu meediya hor taagan yahayna gacanta lama qaban karo qof ka mid ah xildhibaanada xasaanadda leh ayaa wuxuu soo hor istaagay meediyaha wuxuuna hadallo waxa ka soo baxay aan munaasib ahayn oo sharciyan ahayn oo sharci darro ah oo dambi ah laakiin waxaan leenahay madaxweyne ku-xigeenka abalajasna ka bixinayno raalli ka hada arrintaas wax munaasibana ma ahayn wax jirana ma ah waa caro caasimadda lagu sameey waayey anagana mataqaanaa si dadban nolol ka faa'iideysta arrintaas anagoo ka faa'iideysanahay fursadda xil wareejinta waxaan rabaa in shacabka meediyaha ka maqla iyo ka maqlaaba ay maqlaan madaxweyne ku-xigeenkuna oo mataqaan nagu qaato anagoo raaligelin ka bixi doona arrintaas si badan oo la wadaagi doona inay qalad ahayd arrintaas mar kale waxaan rabnaa inay reer Hiiraan ogaadaan dowlad goboleedka xisaabta ugu weyn inay leeyihiin cabashada ugu faraha badan oo ama media ka baxdo ama xanta in meesha ayna ku jiro waxa ah madaxweynaha waxa ah gudoomiyaha baarlamaanka waxa ah gudoomiyaha ku-xigeenada baarlamaanka nambarka ugu badan oo xildhibaanadan waa ay waxa meesha ka jiro markii wax la dhisayay dadkii hagardaameynayay wili hagardaamada way wadaan waxay isticmaalaan dad kala duwan waxay isticmaalaan xildhibaanada qaarkood ayagoo ujeedkoodu uu yahay dowlad goboleedka inuu meesha ka baxo laakiin alxamdulillah ma dhicin taas dowlad goboleedku waa dhisan yahay